waa pin code dhadhadhadha waa pin code idinku dhaashka buuxiya عادية cabdiqaadir oo markii dagaaladii wadanku ka dhaceen dagaalada wadanka markay ka dhaceen baa aabahayna soo kaxeeyay wuxuuna keenay wadan ka mid ah bariga Yurub aniga iyo ina yar walaashay aabahay halkii buu nagu hayay waxbarashaan galnay 8 sano jiray markaan wadanka imaanayay wadankana keenayay waxbarashadii baan galnay waxbarashadii hadaan dhiganay on iskuulka dhiganay on xoogaa wadankii la qabsanay gabdho dhowrsoon iskuulkooda dhigto iskuulka ka yimaado guriga joogo oo luqadii wadanka bartay oo wax bartay aan nahay aaba uu naga laabtay ila gura sheekada la idinku dhufay xiligan oo kale la guraa ijiida ku soco aaba haduu naga laabtay on aniga inantii joogno oo waxbarashadii dhiganayno on markaa dugsi sare galayno ayaan xaafadayadii kala dhan soo qaadnay hooyada iyo walaalaha iyo dadkaygii oo dhan ba soo qaadnay intii wadankana uga habsanayd markaan tamaandho soo gaaray ayaa waxaan isrinay xagga galbeedka Yurub maad iska tagtid iyo wadamada hore oo wadankan waxbaad ka baratay wadamada hore maad u gudubtid wadan baan iska dhiibay galbeedka Yurub hadaan wadankii iska dhiibay kaan baan galay waxaan ahay gabadh yar qurux badan tamaandho ah oo wax markaa dilaacay oo wax markuu dilaaco waa markuu ugu qurux badan yahay wax markaa dibnihiisa kala furay waxa tahay mid dayre heesta ma dhigeysin igada faadumay 2002 isoo xasuus ina mari markaa dilaacay oo eg oo gabadha wax baratay oo wadankan kaligeed joogtay oo aabahoodna ka tegay oo libaaxad saa shaarba hadii looga taabto afka kala qaadaysa abaan wadanka tegay kan baan iska dhiibay kaanku waxaan ku joognaa 3 qof oo Soomaaliya 20 ku waa rag kan baan iska dhiibay markaan wadankii kale Yurub ahaa tagay oo de wadankii markaan joogay wadan nolol dhaama markaa wadamada lambar 1 ku jiray ayaan iska dhiibay wadanka kan baan iska dhiibay kaamka 3 qof oo Soomaaliya ku joognaa 3 baan dumar ku nahay 20 kale waa rag ku dhamaatay faadumay toos intaas ku adkaatay ku soco aadaway waqtigu waa 2002 Soomaalidu saa uguma badnayn dadku way istugsan jireen waxa weeyaan meesha qof Soomaaliya joogo baa la wada iman jiray waxaan ahay gabadh yar oo qurux badan oo qumanayto sileexi kala khajajaran ma sha Allah adigu ubaxda dilaacay markaa inamadu kuma dhacaan oo inanta markaa saa u aragto gabadhna waa gabadh jilicsan oo aad markaba la sheekaysan karayso bool hadaad qabato iska ka soo raacaysa gabadhna waa gabadh libaax oo aad ka baqayso iyadu ku hogaaminaysa 20 nin hogaan baan u noqday talada ay weydiiyaan waxa la sameeyay ay weydiiyaan hadii kaamka wax ku soo kordhaan bay igala tashadaan waxaan u noqday hogaan maragi ha adkaata ragii hadaan hogaan u noqday oo de gabadh anigu Yurub wax ku soo baratay aan ahay oo ii daba fadhiyaan on hogaamiye u ahay oo taladii ila imanayaan oo fikirkii ila imanayaan oo wax kasta ila imanayaan ayaa kaamkii waxa yimi inankii markuu yimi wuxuu war hada gabadha tani ma idin wada taagto wadinka saan u daba yaacay gabadha miyaad la sheekaysataan oo 20kiinaba ma xiriir baad la leedahay markaasay ku yiraahdeen yaa la yeelan karaya xiriir waxa weeyaan gabadhan waa libaaxna cidma ag fadhiisan karayso markaa ma qof quraato la sheekaystaan ugu jiro ana gambadhkaaga dhiganayo wiil idinku igu eega Cabdiqaadir oo kursigu soo ag dhigtay aroortii markaan imanayo cuntada kursigu ii sii masaxaa kursigan waxa iska la boqoradii baa ku fadhiisanaysa ka soo ag wareegina halkaan marayu ii sii xaadha halkan waxa maraysa boqoradii dhagaxan ka sii ururiya waad ka dhaxarki doontaa waxa ku soco hablo hadda qosla gabadhu maxaa ka dambeeyay ku soco halkan
halkan waxa soo istaagaysa boqoradii halkan soo istaagaysa ka fogaada أنا كي أكتر دون بصافر ولا شيء كان ربنا كله بالغور شيء كدوني معي أنا ويمكن شيء كديارو مئه إن أنا الله سما يستارت كام كان كبحان ربع ماي كام كان ولا إنه كترنا ولا حوش ولا سكودا ولا تعايل كان كسين دونا ولا نلشان كوجرين دونا ولا الفقرات بانكاردي دونا ولا لوجه هندها كوجرين ولا ما ده حتاج بانكو سوري ولا على فرخاسان كور دوايه أنا كان بانكوشرة أنا كان بانكوشرتا شرعي ما هيسد أنا شرعي ما هي برضه أن كامك كبحنا. هاي وعليكم أركسن هاي. عليكم السلام مسيس أركسن سولو. مركا أن كامك كبحنا. ماي كامك كبح ماينو. نورش هو حيكون معاه أنت مركا تقفك سلصوب بالأوضح. بلد بيلتي تهاد. كي ليك لغو صوت دريبا أنا هاي أدنى واحد هاي قبردي لاي دالاي أنيقا. أنا لايك هادالاي مقعنا ليقو كابحش. هاي. واي إنا كي كاقبلاي. حرير مسجور ما حريركي بان horta ka aqbalay xiriirka guurka xiriirka ka horeeya xiriirkii baan ka aqbalay xiriirkii markaan ka aqbalay waxay sii socoto inaan ku dawaad dahab waa waxaan la quureyn waa waxaan adduunka loo quureyn guurkiina ka aqbalay si yar oo fudud baan hayeeri haye hadaan idis guursano kaamkii baan isku guursanay kaamkii baan تلفونكي كوكلا قبضنا لو تريجي كحرين كوبات. هاي هبلو بوس ليدي دي محاري كام كلو جوز. بوس ليدي بعد ما عاوا بوس ليدي يا كام كلو جوزري. بوسها. أصدق قاتنا ورساقت بوتي أنا قلنا رساقت بوتي لو تريجي عن حرين أنا رساقت بوتي كام كأنا جو حاملة وبشي سجلات كتيرة. marka qofka haduu kaamka uur ku yeesho kaamku ku dhali jiray way lacagta badan ee qofku markuu dhalayo la siinayo bay ka xasti jireen anigu markaan oo bishii sagaalaad ku jira bay kaamka iga saareen guriga geeyeen gurigii baan gogolanay ilmihii yaraa ee coradkeegii bana fatoonu noqno hay maxaad bixiseen waxaad u bixisay ii soo qoraysaa wayna la joogtaa soo qor waxaad u bixisay luuqa ku soco ilmihii yaraa wuxuu noo noqday bana fatuuno alxamdulilah iyo haddaan kaamkii ku dhalnay cabdilaahi okay cabdilaahi maasha allah ha cabdilaahi yara bana fatuuno noo noqday bana fatuuno hadduu noo noqdo alxamdulilah noloshii noo bulaashay oo aan wax dhigto isagu wax dhigto oo aan la dadaalo weliba isagu inuu wax barto ilmihii yaraa aan haysto ayaa waxa dhacday cabdiqaadir oo saas ii kolkooliya haddaan seexdo anigu ilmaha yar isagaa haba haddaan cuntada karinayo isagaa ilmaha yar haya haddaan anigu ilmaha yar haya isagaa cuntada karinaya haddii uu guriga ka baxo iskuulka inta yar ku maqan yahay guriga uu usoo xiisaya wuxuu isleeyahay ilaahow yaa gurigii hal mar ku geeya nolosha banaanku uma dhadhanto guriga wuxuu ku haystaa farxad wuxuu ku haystaa deganaansho gurigii alxamdulilah waan hagaajisanay gurigii waan qurxisanay meel kasta oo indhihiisu qabanayaan ubax cas baan dhigay ilaa suuliga xitaa ubax cas baa noo yaala xaggan markuu saa u eego saasuu il doogsanaya xaggan kale markuu eego saasuu il doogsanaya meel kasta green iyo red ubaxa baa yaala ilmihii labaad baan caloosha ku qaadnay ilmihii labaad baan oo dhashay isagana inan ah jacaylku wuu kasii ballaadhanaya nolosha intii hore way kasii qurux badnaanaysaa liisanadii wadanka wuxuu qaatay liisan wadanka lagu barto oo dhan ayuu soo wada qaatay haddii liisanadii wadanka oo dhan uu soo wada qaatay adeeg isagaa soo iibiya ilmaha markaan umulo wuxuu raadiyaa wax ilmahan caana uga samaynayo jidhkayga si aanu dhiigayga ilmahan u nuugin markaasaa supermarketka marka laga adeeganayo wuxuu ku yidhahdaa ablaa shaygani wuu u fiican yahay tamaandho because ilmaha yar markay shaygan cunto caano u samaynaya dhiiggeeda ilmaha yar nuugi maayo markaasay dumarku waxay leeyihiin bismillah raxma sawkan ku waashayba gabadhi wiilku maaha umusha wadanka de qurbaha gabadhu ma noqoto sidii wadankii umulo lama yiraahdo umusha yaa ka saaraya umusha yaa haynaya umusha isaga aniga igu fila haddii ilmuhu markuu ii yar weynaado xaflad layga casuumo waxay odhanaya caaw xaflad baa tegaysa haa
أنا عروت كاهنا يسيحه سيادة عاو تجين أديكو القاصن أما دال كام مقضى أما way kaa muuqato qaadir maanta oo dhan iska hurud galabta markay noqoto kac adigoo nasto madaxa ku digay xafladda tag هي ورما شاء الله لها فرحة داس ممكن فرحة لك الشاكين فرحة دح قاعدة وصورتنا إذك فرحة دا كترتان الله خير هذا السيء واحد سوقي أنت حاولك تشاهدها في هذا كساعة haddii lacagta waan ururiyaa waxa ilmaha caruurtana la ku siiyo waxa uu soo shaqeeyo waxa uu dawladdu markaa ayna siiso waan wax kasta waan ururiyaa waan nadaamiyaa waxaan ku tala jirnaa inaan wadankii wax ka qabsano aniga reerkayaga familkayga oo dhan halkan ay wada joogaan waan wada keenay cid marka aniga familkayga wadankii joogta oo aan wax u diraa ma jirto isaga familkiisaan u diraa biil oo anigu biil u bilaabay ما شاء الله بارك الله hadaan noloshii sidii noo tahay oo noloshu noo qurux badan tahay oo xaafadda Layla iyo Qays noo ka yaqaano oo la yiraahdo reerkaasi ilaahay oo kuma إيش عدو كقبت وعاوش كذا فرحة كل ما يا ربي يا واو فرحة كساعة oo la yiraahdo reerkaasi reer iyo maaha Layla iyo Qays ma idinkoo kale wadanka waxaanu u nahay role model gurigayga waxa lagu tiriyaa guriyaha magaalada Soomaalidu inta guriga ugu quruxda badan saan u sharaxay saan u dhismo qaab dhismeedkiisa saan u hagaajiyay alaabta noo taala sida uu noogu sharaxan yahay meel kasta waxa noo suran dadku markay noo yimaadaan waxa dhahan oo ma sha Allah isagu markuu guriga ku jiro wuxuu dareemayaa farxad deganaansho happy inuu qasri dhex joogo inta yar ee shaqada uu ku maqan yahay ama iskuulka uu ku maqan yahay ama banaanka uu joogo jawiga uu ka qasan yahay ilmihii saddexaad lootarigii saddexaad baan xareynay ilaahay wuu nagu irsaaqay lootarigii afraad baan xareynay ilaahay wuu nagu irsaaqay 4 ilmood oo wiilala markaan haysano oo noloshu aad noogu qurux badan tahay hooyaday iyo walaalahay joogaan wadanka mashriq iyo maqrib laakiin qurbaha ay la wada joogaan aabahay geeriyooday Allah u naxariisto xaajigayga fariya faraanti isku nahay Allah u naxariisto far iyo faraanti aan isku nahay ayaan waxaan doonayaa inaanu wadankii tagno xogaa caruurta maadaama inamana ay yihiin wadankana ay ku dhasheen xogaa waxaan ka dareemay caruurtu inay naga yara qalqaaliyoobayso markaan waxaan jeclaysanay inaanu Kenya caruurta xogaa diinta ku soo barno waxaan damcay inaan lacagan haystay markaan anigu guri kaga iibsado Kenya marka building la dhisay oo isliib ku yaala baan ka iibsaday qayb apartmento lacagtii baan shubay maalin baan shubay lacagtii baan maalintii dambe dhameeyay ilmaha u dambeeyaan xaamiladiisa ahaa waxaan ku uri xaaji baasaboorkayga qaado ma dhoofi karayo anigu maadaama xaamil ahay ilmaha waxaad ii soo qortaa guriga ii soo qor documentiga ku soo wareeji oo nimanka iiga soo wareeji documentiga guriga Cabdulqaadir waa yahay buu yiri oo baxay baasaboorkayga muu dhiibay baasaboorkiisii buu dhiibay kiisi baa lagu soo qoray guriga magaciisa ku soo qoray uu yimi oo maxaad kayga ugu soo qoray oo aniga adigu ma waxaan kala nahay xabiibti soo inaga hal nafs ku ah way bilaamatay haye aniga adigu hal naf soo inaga isku ah دوارون ده هل نفانس كنا لكن قرقنا أنا يبسدو خاصي أخا ما هل نفانس كنا لكن مالن على مالن تاد أبا هاتو إن كوجو وريتيو لون وري هكور وري أنا جاي بكل صانع واي أنكو كل صانع هو حاجي عرورتي بحاجة يسوع يلا كاتيو وان قرني وضن كان بس نسك سماي سناي وحنا هستعد ذهب عاد فربضن dahabkaygi baan iibsaday dukaan baan ka furtay wadanka Kenya isagoo meherad weyn buu ka furtay isbeer baartiga alaabta aan ka dalbano Europe iyo China markii dambena noo kala kacday guri weyn baan ka kareysanay isla markaa kamaan kareysanay Nairobi xaafadaheeda kale ayaan ka kareysanay oo si aan caruurta waxbarasho fiican oo heer sare ah aan u geysano laba gaari buu isagu iibsaday ana gaari yar buu iibsaday si caruurta aan iskuulka ugu geysto uga soo kaxaysto casarkii waan israacnay dukaankan tagnaa dukaamadan tagnaayo waan soo xisaabinaayo daleeriya qaysaasan garabka isku haysana
هاي guriga dad badan baa joogo oo dad martiya baa ila joogo hablaha shaqeeya ila joogo gurigu waa laba dabaq aan deganahayo qayb sare iyo qayb hoose oo noloshu way noo qumantahay ilaa hadda هاي cabdi qaadir